السلام عليكم. سهل بن بشر وحويري وحائشة كيني ليراد سلال ابن أيوب ابن سلال واجي او يرا وحو دغنان جيري مeel magaceeda la yiraahdo ray 10 sano markii uu gaaray quraanka kariimka ayuu xoogaa ka bartay niman culimo ah oo ay meel isku yimaadeen culimadii nin kamid ah ayaa yiri salaadna tuji maxaa yeelay arday dadaal badan ayuu ahaa wuxuu yiri waxaan bilaabay in aan suuratu faatiha akhriyo laakiin waan awoodi kari waayay in aan akhriyo faatixadii oo ay igu adkaatay sidii inuu carabkayga khalalay oo kale waan wadi waayay suuratu faatiha kadibna culimadii mid kamid ah ayaa ii yeeray wuxuuna igu yiri hooyo ma leedahay waxaan ku dhahay haa markaas ayuu wuxuu igu yiri orodoo hooyada u tag waxaad ku dhahdaa hooyo ii ducee oo waliba waxaad igu duceysaa quraanka akhrintiisa iyo xifdintiisa iyo barashadiisa hooyaday ayaan u tagay ayuu dhahay hooyo ii ducee aan dhahay hadaba way ii duceysay hooyaday markii aan weynaaday cilmi baan dalbay oo waxaan aaday Baghdad waxaan si fiican u soo bartay luqadda Carabiga iyo fiqiga magaaladii aan ku dhashay ee Ray la dhihi jiray aan ku soo laabtay aniga oo masjid weyn ku dhex jira akhrinaya kitaabka la yiraahdo Mukhtasarul Janiyyi ayaa waxaa arkay ninkii waagii igu yiri hooyada ka soo duceyso asagana ima garanayo laakiin waxaa loo sheegay hadda ka hor in ay sheekadana dhaxmartay markaasuu ninkii wuxuu yiri talow qofka asagoo da'yar sidoo cilmiga ku baran karaa markaas ayaan waxaan qalbiga ka dhahay ayuu yiri hadaad hooyo leedahay ku dheh ii ducey kadibna ninkii odayga ahaa ayaan ka xishooday kadib waxaan ku dhahay hadaba ninka cilmiga leh caalimkana ah waxaa sabab u ahayd hooyadiis oo u duceysay halkaas waxaan ka qaadanaynaa ducada waalidka in ay tahay maqbuul loona baahan yahay qofka in uu waalidkiisa ka duceysto wabillahi tawfiiq